وأنا سلامة دمان صاحبتها ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan oo dula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa in idinla wadaago taariikh nololeedka tirshada caanka ah Brita Zindi waxaan idinla wadaagi doonaa taariikh nololeedka tirshada Brita Zindi iyo sidoo kale xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah iyo sidoo kale aflaamta ay sameysay kuwa loogu jecel yahay balse intaan ugu gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaalka soo birto subscribe saarto haddii uu muuqaalku cajib geliyo like inoo saar wixii ayaad qabto commentiga hoos inoogu reeb sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal Brita Zindi waa mid kamid ah tirshadii soo caan baxay dhamaadkii sagaashameeyadii waana mid kamid ah tirshada lagu jecel yahay Bollywoodka khaasatan kuwii soo caan baxay dhamaadkii sagaashameeyadii waliba aad waxaa looga helay qaab jilinkeedii wanaagsan ay ku muujisay aflaanta ay kamid yihiin filimkii caanka ah Soldier iyo sidoo kale filimkeedii ugu horeeyay Dilse markaan eegna gabadhaani waxay dhalatay 31 January sanadii 1975 da'deedu waxa weeyaan 47 jir waxayna ku dhalatay magaalo lagu magacaabo Shimla oo ka tirsan gobol lagu magacaabo Himachal Pradesh oo gudaha India tirshada aabaheed waxa lagu magacaabo Dargunan Zinda halka hooyada lagu magacaabo Nilbarava Zinda markaan eegno Brita Zindi walaalkeed kabeen waxa lagu magacaabo Dibangar Zinda waxa uu ka shaqeeyaa mid kamid ah xafiisyada ciidanka xoogga dalka India Brita Zindi walaalkeed ka yarna waxa lagu magacaabo Manish Zinda waxa uu ku nool yahay gudaha dalka Mareykanka Brita Zindi markaan eegno waxyaabaha ay ka heshay ama xiisiiso Brita Zindi waxa leeyahay waxyaabaha ay ka heshay waxa kamid ah akhrinta buugaagta sidoo kale ciyaaraha dansiga iyo waxay kala jeceshahay inay jiimka aado ee wax qaado Brita Zindi saaxiibada ay aad isku dhab yihiin waxa lagu sheegaa in ay kamid yihiin jilaaga caanka ah Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan, Salman Khan iyo sidoo kale tirshada caanka ah Irani Mukherjee markaan eegno gabadhan lagu magacaabo Brita Zindi ma jiraan aktar ay ka taageerto gudaha Hindiya way jiraan waxay aad u taageertaa Guru Dutt nin lagu magacaabo jiray ama jilaa Bollywoodka waagi barnaamijka caan ahaa laakiin waa uu geeriyooday sidoo kale dadyoga ay taageerto waxa kamid ah jilaaga caanka ah Sanjay Dutt, Aamir Khan iyo sidoo kale aktorihii ugu horeeyay film isla sameeyaan waa ninka lagu magacaabo Shah Rukh Khan Brita Zindi iyo aflaamta ay jeceshahay markaan eegnana waxay aad u jeceshahay filimkeedii ugu horeeyay ee ka soo muuqatay Dilse kaas oo ay la wada jilaaga caanka ah Shah Rukh Khan iyo sidoo kale filimka jaceylka ah ee lagu magacaabo Titanic kaas oo hogaamiyaha ka ah ninkii caanka ah Leonardo DiCaprio markaan eegno gabadhan iyo dhanka xiriiradeeda jaceyl ama xiriiradii ay soo sameysay markaan eegno tirshada nin kasto ay kamid ah tirshadii Bollywoodka soo maray kuwoodii loogu jeclaa ama ugu quruxda badnaa gabadhan dhanka xiriirada waxay xiriir la soo sameysay nin lagu magacaabo Shekhar Kapoor oo ahaa jiray ama kamid ah agaasimayaasha Bollywoodka soo maray ama Bollywoodka ka xamaalan jiray sidoo kale nin lagu magacaabo Mark Robinson oo sidoo kale asagana lagu sheegay inuu yahay jilaa iyo sidoo kale modeliste sidoo kale qoftaan lagu magacaabo Brita Zindi ama tirshadan waxay sidoo kale xiriir la sameysay nin lagu magacaabo Nis Wadia oo asaguna kamid ah dadyoga ganacsada ama nin ganacsada ah laakiin ugu dambeyn waxay la aqal gashay nin lagu magacaabo Gani Good Enough 28 February sanadii 2016 waxay u dhashay laba caruur oo mataana oo bilo ka hor ayay u dhashay saaxiibayaal markaan eegna gabadhan iyo sidoo kale hantida ay aflaamta ay ku sameeyso gabadhan waxa la sheegaa in 2 ilaa 3 karoor lacag u dhigantay inay ku sameeyso halka filim hantideedan waxa lagu sheegaa $30 milyan oo dollarka Mareykanka markaan haddaan eegna tirshadan iyo sidoo kale xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay ilaa ay dhar xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa waxa la leeyahay xaqiiqooyinka waxa kamid ah gabadhan waxa la sheegaa inaysan isticmaalin ama aysan cabin sigaarka waxayna kamid tahay tirshada Bollywoodka soo maray aan sigaarka cabin laakiin waxay cabtaa sida shaac laga qaaday khamriga sidoo kale xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay gabadhan waxa kamid ah waxa la leeyahay iyadoo 13 jir ayay weyse aabaheed markii uu ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha India saaxiibayaal xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay tirshadan Brita Zindi waxa kamid ah waxa la leeyahay gabadhan waa qof ku fiican dhanka waxbarashada ama aad ay u jeceshahay inay wax barato aad ayna xiftinteedu aad u wanaagsan tahay sida shaac laga qaado saaxiibayaal xaqiiqooyinka gabadhan laga diiwaan galiyay waxa kamid ah waxa la leeyahay waxay aad u jeceshahay xirashada ama inay soo iibsato kobaha hoos laga xirto kale oo libiska ay aad u jeceshahay mar walbana waxay jeceshahay inay suuqyada aado ay soo shopping garaysato saaxiibayaal xaqiiqooyinka la tirshadan idinkala wadaagi doono waxa weeyaan waxa la leeyahay tirshadan waa gabar u dhaxaysa ama ka wada shaqeysa regionalka Hindiya ama regional films waxyaabaha marka la yiraahdo ama shirkadaha Hindiya ka dhisan gudaha Hindiya haddii aan lahayn dhanka Tollywoodka haddii aan lahayn dadka dhanka Punjabka dhanka Bollywoodka dhammaan waa u dhaxaysa marka la yiraahdo waana tirshad regional films ah aflaamta Tollywoodka lagu xasuustay ka soo muuqatay waagi aad ku daayirad waxa kamid ah filimkii caanka ah Rajkumar Raju marka Telugu ahaan loo sheego weeyaan laakiin afindi naqanayo Prince number 1 oo ilaa jilaaga caanka ah Mahesh Babu ama sabirka idinka hortiina ka muuqda filimkaas weeyaan waana mid kamid ah aflaamta aadka loo jeclaa horaantii qarniga 20aad waxaana filimkaas sidoo kale ka soo muuqday ninkii ahaa Lelefo meedahayna ninkii Lelefo ah iyo sidoo kale Seerabta laakiin dadka xilligaas aflaamta markii Bollywood shaleemoyinkan daamajin dadkaan hadda aad ayaa loo yaqaan laakiin xilligaasi dadka laga ma yaqaanin oo yani dad saameyn ku leh
Soomaalida dhexdeeda marka la yiraahdo maysan ahayn saaxiibayaal. Xaqiiqada ugu dambeysay atirashadan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan waxa la leeyahay gabadhan lagu magacaabo Birita Zinti ma shaqeyso maalmaha Axadda. wax walba u dhaco ama shaqo walba u taalo ama wax walba qaba la yiraahdo gabadhan waxa caadadeeda ah inaysan maalinta Axadda aysan shaqeynin saaxiibayaal. intaas dan kaga gudubna xaqiiqooyinka gabadhan laga diiwaan galiyay markaan waxaan eegi doonaa aflaamta ay sameysay kuwa ugu sheekada wanaagsan ilaa ay dhowr filin ama 10 filin ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal. Filimka ugu horeeyaan ku bilaabi doonaa filimkii ay ku soo baxday Dilsi ka oo la daawada sanadkii 1998 waxaana qayb ka ahaa jalaaga caanka ah Shah Rukh Khan iyo Manish Karool. Filimkii labaad ee waxa weeyaan filimka lagu magacaabo Zolder ee laba jalaaga caanka ah Bibi Doll asigana waxa la daawada sanadkii 1998. sidoo kale aflaamta kale aadka loogu amaano waxa weeyaan filimkii caanka ah Kya Kehna kaas oo ay ku heshay amaan aad u weyn waxaana la daawada filimkaasi sanadii 2000 ayuu soo baxay saaxiibayaal waana mid kamid ah aflaamta sanadkaas soo baxay kuwa loogu jeclaa. markaan eegno aflaamta kale ka soo muuqatay adeegshadan waxa weeyaan ama ugu caansan filimka caanka ah Jori Jori Jubki ka oo laba jalaayaasha kala ah Salman Khan iyo sidoo kale Rani Mukerji waxaana filimkaasi asigana la daawada sanadii 2001. sidoo kale aflaamta kale lagu amaanay gabadhan waxaa kamid ah filimkii caanka ah Koi Milgaya oo laba jalaaga caanka ah Hrithik Roshan waxa uu soo baxay filimkaasi sanadii 2003 Soomaalidu waxay u yaqaanaan filimkii caanka ah ee Jaadu. aflaamta kale gabadhan lagu amaano waxaa kamid ah filimka lagu magacaabo Armaan ka oo asigana la daawada sanadii 2003 saaxiibayaal. sidoo kale aflaamta kale ee aadka loogu amaano waxaa qayb ka ah oo aan la iloobi karin filimkii jaceelka ahaa ama jaceelkii saddex geesoodka ah ee Kalhoonaho oo ay laba Shah Rukh Khan iyo sidoo kale jalaaga caanka ah Saif Ali Khan. sidoo kale aflaamta kale lagu amaano waxaa kamid ah filimkii asigana jaceelka ah ee laba jalaaga caanka ah Shah Rukh Khan waana filimka caanka ah Veer Zara ka oo asigana la daawada sanadii 2004. aflaamta kale lagu amaanay waa filimka sagaalaad ee gabadhan lagu amaano waa filimka caanka ah Salaam Namaste. filimkan waxa uu kamid yahay asigana aflaamta gabadhan lagu amaano waxa uu soo baxay sanadii 2005. filimka ugu dambeeyay aan kala wadaagi doono gabadhan 10keeda filim ugu sheekada wanaagsan waxa weeyaan filimka caanka ah Kabi Alfi Dana Kehna oo macnaha noqonaysa marnaba ay dhihin waan kan dheeraana ama ka fogaana maadaama alfida ay noqoto bixitaan ama qof markuu ka tagayo Kabi Alfi Dana Kehna marnaba ay dhihin waa ka tagaa ayaa kamid ah aflaamta gabadhan aad loogu amaano waxa uu soo baxay sanadii 2006 waxay laba jalaaga caanka ah Shah Rukh Khan saaxiibayaal. atirashada Birita Zinti waxay kamid tahay gabdhihii soo caanbaxay dhamaadkii 9-meedii aadkana loo jeclaystay aflaamteeda ama qaabjilinkeeda. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xogtii iyo xaqiiqooyinkii aan kala wadaagay atirashada caanka ah Birita Zinti taas oo u dabaaldegi doonta maalinta Birita sanad guurida dhalashadeeda 47. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkeena like inoo saar channelka aad ku cusubtahay subscribe inoo saar wixii ay qabto commentigaas inoogu reeb siina share gareeyo labada asxaabtaada waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.